bishii abriil sanadkii 2017 ayay ahayd markii si rasmi ah xilka agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka loogu magacaabay Saacid Cabdullaahi Macalin Maxamed oo ah shakhsi dhalinyaro oo wax ku bartay gudaha dalka iyo dibadda waxaana agaasimaha uu wax badan ka bedelay howlaha shaqo ee wasaaradda taasi oo suuragelisay in dibadda lagu sameeyo garoomada diyaaradaha Kismaayo, Dobley, Baardheere iyo Luuq. shaqaalaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa iska kaashaday sare u qaadista howlaha shaqo ee wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka Jubbaland waxaana taasi ay keentay in ay sare u kacdo shaqada wasaaradda gaadiidka ayaa suurtagelisay in maraakiib ku dul burburay biyaha badda hoostooda laga soo saaro taasi oo dowlad goboleedka Jubbaland ay ka caawisay dowladda Talyaaniga. shaqada wasaaradda gaadiidka ayaa isbedel muuqda ku yimid waxaana taasi ay sababtay in wasaaradda gaadiidka ay hormuud u noqoto qaar ka mid ah wasaaradaha ugu shaqada badan dowlad goboleedka Jubbaland. Puntland TV ayaa u kurgashay dhismo ballaaran iyo dibadda lagu sameynayo xarunta wasaaradda gaadiidka Jubbaland waxaana shaqada iyo sida ay u socoto inagu warbixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka Jubbaland Saacid Cabdullaahi Macalin Maxamed. sida u jeedaanba waxaa ka socdo dib u dhis iyo dib u dayactir aad u ballaaran oo soo bilowday muddo 7 ama 2 toddobaad ka hor wasaaraddu ku bilowday alxamdulillah haddana meel fiican oo dhaxdhaxaad u maraya waxaan rajeynaa insha Allah inta bishan ka dhimay inaan ku dhameyn doono dayactirkaas lagu hayo wasaaradda dhismaheeda aad u jeedaan marka meel fiican buu noo maraya waxaa gacan naga siinayo laba institution oo la kala dhaho UNIDO oo UN ka tirsan United Nations Industrial Development Organization oo shaqadii fulinayso iyo qolada fanka bixinayso ama lacagta bixinayso oo la yiraahdo hay'ad Italian Development Corporation oo hay'adda horumarinta u qaabilsan Talyaaniga ee fanka bixinayso laakiin waxa shaqadii fulinteeda iska leh qoladan UN ka tirsan la UNIDO loo soo gaabiyo yaa shaqadii qabanayso fulinayso marka si guud ahaan guriga oo dhan waa la dayactirayaa macal darbiyada macal wareega macal qolalka service-ka ee wasaaraddu ka kooban tahay meel reebay ma jirto insha Allah marka dhismahana waxa loo yaqaanaa wasaaradda gaadiidka degantahay laakiin waxa kale martino ahna la deganaa wasaaradda warfaafinta ayna rajayna hadda boos dhismo cusub ay heli doonto inay u guri doonto laakiin dhismuhu waa dhismo lagu yaqaan wasaaradda gaadiidka Jubbaland dhammaan waa la dayactirayaa asagoo dhan waxay ku shaqeysaa hadda wasaaraddu si ku meel gaar ah xafiisadeeda muhiimka u sii shaqeyn maadaama aan la joojin karin lihi karin wasaaradda dayactir baa ka socday hawshu iska istaagaysaa dhismo nagu dhagan oo la dhaho bankiga dowladda goboleedka Jubbaland yaa nagu caawiyay inuu dhowr qolna siiyo oo shaqadii asaaska ahayd aan laga maarmeyn ee u sii socoto waana hadda waa lagu sii shaqeeyaa meesha wasaaraddu marti ku tahay halka lagu ma shaqeyn karo dhismaha ka socdo dhismihii oo dhan qolalkii oo dhan wixii dhan waa la dayactirayaa oo waxa way wax hatta qalabkii baa laga rayo meel kale la geeyay marka shaqadii wasaaraddu way socotaa alxamdulillah fanka waxa bixisay hay'adda horumarinta Italian Development Corporation waa hay'ad Talyaaniga waxa shaqadii fulinaya UNIDO waxa shaqadii si hoose u sii fulinayo shirkad dhismo oo la yiraahdo Kismaayo Construction Company Kismaayo Construction Company shirkad la fulinayso local oo Kismaayo dad joogo deegaana ay leeyihiin oo dad la yaqaan waxa lagu soo xulay UNIDO iyo wasaaradda waxa ka kaashadeen in barnaamijkii markii fankii aan ku guuleysanay inay hay'adina siiso in la xayisiyo waa la xayisiyay waxaan ku xayisin anoo ka warhayno website-ka ee leedahay UNIDO then waxa soo codsaday hay'ado fara badan si online ah waan qiimeyn kadib wasaaradda iyo waxa isla sameeyay UNIDO waxaan u salka tagaranay oo xulanay Kismaayo Construction Company oo tusaale noo ahayd ayadana budgetka aan ugu talagalina meesha aad u soo dhaweysay maasha Allah kuwa kale oo ma soo dhawaanin sidoo kale Kismaayo Construction Company waxay dhistay guryaha naga soo horjeeday wasaaradaha cusub ee complex-ka ah ee weyn sidoo kale waxay dhistay dhismaha maamuus la yiraahdo sidoo kale waxay dayactirtay markii ugu dambeysay xariga laga jaray July 10keedii oo qayb ka eedana joogteen xarig jarkii garoonka dayactirkiisa lagu sameeyay shirkadda dhistayd marka intaas oo background iyada leh haddana la xayisiyay xaq u yeelatay inay qaadato dad loo kala Soomaaliyeed oo reer Jubbaland aan iska leh wasaaraddu waa laba qayb isku jirta wasaaradda adeeg bixin iyo wasaaradda dakhli dhalin shacabkana adeeg bay siisaa dowladda goboleedkana dakhli bay u soo xareysaa ilaahay noo fududeeyo marka adeegyada bay soo ka mid ah taariikho gaadiid markii la sheegay hadii documentska ama waraaqihii la xiriiray sharciyada la xiriiray gaadiidka baa kugu soo dhacayo waa haday noqoto taariikho oo warqadii birti macnaha baawarta labada gees ganigneed ee baawarka tixraaciisa lagu ogaan lahaa haday noqoto warqad la yiraahdo canshuurta wadamarista gaadiidka ama sticker ama trismataale Talyaaniga ay jireen ama driving license oo ruqsadda wadista gaadiidka sidoo kale waxaan kala wareejinta gawaarida kale documentska dadkii milkiilaasha u kala wareejiso intaas hadda qabata adeeg oo basic inta way shaqeeyaan waxa kale oo rabnay oo noo hirgeli la wali runtan ka sheeganahay oo wali pilot project noo ah tijaabo noogu jiro mashruuc online ah oo digital ku shaqeynayo oo wixii diiwaan gelinayo wixii reportna
lagu sameyn doono qof kastoo internetka isticmaalaya oo informationka dhan complete oo gaadiid ku saabsan si online lagu heli doono insha Allah waxaan rajaynaynaa in dawladda cusub ula jaan qaadi doono haddii la yiraahdo. Ilaadan Maxamed, raadiyaha TV-ga Puntland, magaalada Kismaayo.